Assalaamu calaykum saaxiibayaalow. Muuqaalkeenani waxa uu daba socdaa muuqaalkii ka horreeyay kani. Waxaynu kaga soo hadalnay sida waxaynu kaga soo hadalnay Arraweelo oo ahayd gabadh faani jirtay ragga ama xiniya siibi jirtay. Laba wiil oo hore ayay xiniya siibtay iyo wiilashii hore oo dhan dhammaantood. Wiilkan waa wiilkii ka soo baxsaday muuqaalkii horeynu daawananay Arraweelo. Imika wuxuu halkan ku sugayaa oo uu doonaya inuu ku dilo halkani ciidamadii Arraweelo. Ciidanka Arraweelo soo dirtayna waxay soo daba socdaan wiilkani. Hadda wiilkan wuxuu u diyaar garoobayaa sidii uu iskaga celin lahaa ciidanadaasi. Wuxuuna go'aan ku gaadhay inuu dilo nimanka ay soo diri doonto Arraweelo. Haddii uu nimanka ka guuleysto ilaa iyada ayuu dili doonaa. Laakiin dagaal adag ayaa halkan ka dhici doona maadaama saaxiibadiina la xiniya siibay isagana la raadsanayo. Arraweelo hal nin kama ay tegin tuulada, dhammaan ragga tuulada waa ay xiniya siibtay. Hadda wiilkan waxa uu u diyaar garoobayaa ciidanka soo weeraraya ee ku soo socda. Waa kana ciidankii Arraweelo soo dirtay. Halkan ayaana la isku haleelay. Wiilkan iyo ciidankan cidii guuleysan doonta muuqaalkan ayaan ku daawanaynaa. Ayaynu ku daawanaynaa daawasho wanaagsan. Wiilka yar wuxuu isku dayayaa inuu iska celiyo ciidanka safka wata. Isla mididiisii ayuu sitaa. Hadda meesha waxaa ka socda dagaal culus oo face to face ah. Wiilkii yaraa waxaa isugu tegay labadii nin waxayna doonayaan in ay dilaan. Isna wuxuu isku dayayaa inuu iska celiyo. Waxaan daawanaynaa barkii guuleysta. Hadda waxa uu dilay wiilkii yaraa mid ka mid ah labadii nin. Hadda waxaa daalay kii kale sidoo kale wuxuu ku dhow yahay inuu guuleysto wiilka yari waayo ninkan waa uu daalay. Wakaasaynu arkayno dhulka ayuu ku dhacay. Waxaana ka guuleystay wiilkii yaraa. Labadii ninba wiilkii yaraa waa uu dilay. Hadda wuxuu ku hanjabayaa dushoodii wuxuuna leeyahay labadiinniba waan idin dilay. Rag badanna waad u geysan Arraweelo. Hadda waxaan u tagayaa Arraweelo oo aan iyadana soo dilayaa. Wiilkan yari wuxuu ku faraxsan yahay dilista labada nin waayo waxa uu ka guuleystay ciidankii Arraweelo. Hadda wuxuu ambabaxayaa in uu u soo aaro saaxiibadii oo u tago Arraweelo. Labadii nin labadiiba waa uu dilay wiilkii yaraa midna ma noola. Hadda waxa isagoo cadhaysan uu u tagayaa Arraweelo. Hadda halkan waxaa joogta gabadhii Arraweelo ee sugaysa in ninkii loo soo qabto. Laakiin wuxuuba u yimid isagoo oo seef sita oo yirina waxaan soo dilay ciidankaagii. Hadda dagaal ayaa halkan ka bilaabmaya kii hore ka culus maadaama ay boqoradii iyo islaynayaan wiilkii yaraa ee xaqu dirirka ahaa. Wiilkii yaraa isagoo cadhaysan buu ku soo dhowaaday Arraweelo wuxuuna ku yidhi haddaad wax iska celin karayso walkaalay oo wax iska celi. Hadda waxaa si toos ah u dagaalamaya Arraweelo iyo wiilkii. Wiilkan wuxuu isku dayayaa inuu iska celiyo boqoradda. Boqoradan oo la yiraahdo Arraweelo
dhinaceeda weligeed dhulka lama dhigin, waana laga biqi jiray. Laakiin maanta waxaa helay wiil xariif ah. Wiilka yar wuxuu isku dayayaa inuu boqoradda ka guuleysto. Haddii uu boqoradda ka guuleystana, waxaa nabad noqonaya dhammaan deegaanka. Rag dambena lama xiniya siibi doono ama lama dhufaani doono, waayo waxaa dhimatayba boqoraddii wax dhufaani jirtay markaasi. Maanta haddii wiilka yar laga guuleysto, raggu saas ayay kusii dhufaanaan doonaan. Hadda laakiin wiilka yari wuxuu isku dayayaa inuu kaarta dilo gabadhani. Arraweelo hadda waa uu ka gaadhsiiyey wiilkii yaraa, kadibna waa uu dilay oo dhulka ayuu ugu tuuray, oo hadda dhulka ayay jiiftaa. Waa kan wiilkii yaraa oo aad u faraxsan oo leh, in badan ayaad ragga soo dhufaantay, asxaabtaydiina waad dhufaantay dhammaantood. Laakiin nasiib wanaag, anigu mana dhufaani, waanan guuleystay, waayo ciidankaaga mar haddaan laayay, adigiina aan ku dilay, wax ii hadhay ma laha. Wiilka yari isagoo faraxsan, dhinacna ka cadhaysan oo saaxiibadii xasuusan iyo raggii la dhufaani jiray, ayaa haddana waxa uu leeyahay waa aan guuleystay. Wiilka yari waxa uu ku guuleystay in uu dilo islaantii Arraweelo. Islaantii Arraweelo hadda waa meyd, iyadii ciidankeediiba. Islaantan Arraweelo waxay ahayd islaan imtixaamada oo lagu imtixaamay ragga, oo ragga dhammaantood dhufaani jirtay, midna ma aysan dhaafi jirin. Ninkani laakiin wuxuu ku guuleystay in uu iyada dilo, ciidankeediina uu laayo, kadibna uu noqdo wiil guuleystay oo loo cimaamadayo boqortooyada in uu ka noqdo madax. Saas ayaana Arraweelo lagaga guuleystay.